بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkayga muslimka ah walaashayda muslimadda ahay meel kastoo daafaha dunida ka joogto waa ku salaamay. waxaan maanta doonayaa haddii allah awoodda laynoo saamaxo inaan soo gudbiyo adkaar runtii haddaad akhrisato ilaahay dembigaaga uu dhaafayo, dacwadaadana ilaahay uu ajiibayo, salaadaadana ilaahay uu aqbalayo. waa wax aad iyo aad u wanaagsan arrintaas. in ilaahay dunuubtaada dhaafo waxaad ka jeceshahay ma laha. kulligeenna waxaan nahay dad wada dembaabo, dembigeenna in la dhaafana aad baa u jecelnahay. midda labaad ee faa'iidada labaad ee ku jirta ducadani waxa weeye ilaahay dacwadaada waa ajiibayaa. dacwadaada ilaahay waa ajiibayaa, baryadaada ilaahay waa ajiibayaa. midda saddexaad ee ku jirtana waxa weeye salaadaada ilaahay wuu aqbalayaa. ducadii waatane dhegayso oo walaalkayga muslimka ah u akhriso mar kasta ood indhaha soo kala qaado ood soo toosto. laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim. rabbi ikfir lii. laa ilaaha ila allah, ilaah xaq lagu caabudo ma jiro aan alla ka ahayn. waxdahu xaaluu keligii yahay, laa shariika lahu xaaluu wadaag u sugnaanin. lahu lilaahi keligii wuxuu leeyahay almulku boqortooyadii, walahu ilaahay keligii wuxuu leeyahay alxamdu ammaan iyo mahad oo dhan. wahuwa eebe calaa kulli shayin wax kasta qadiirun weeye mid awoodo. subxaana allah, ilaahay baa hufan, ilaahay baa nasahan, ilaahay baa ceeb oo dhan ka fog. walxamdu lilaahi, ilaahay bay mahad oo dhan u sugnaatay iyo ammaan oo dhan. walaa ilaaha ila allah, ilaah xaq lagu caabudo ma jiro aan alla ka ahayn. wallaahu akbar, ilaahay baa weyn. walaa xawla walaa quwata, xeelad aan kusoo maaragtaye manaaficda kusoo jiidanna ma lihin, awood aan iskaga difaacano madaraadka ma lihin, ilaa billaahi bimacuunati illah, ilaahay uu noogu kaalmeeyey arrintaa mooyaane. allihii alcaliyi sarreeyey alcadiimi ee weynaa. rabbi yaa rabbi, rabbigaygow ikfir lii, ilaahu ii dembi dhaaf. marka walaalayaal, ducadaasi waa duco yar oo gaaban, waadna xifdin kartaa insha allahu tacaala. mar kasta oo aad soo toosto ood hurdada ka kacdo ducada akhriso. haddaad ducada akhrisato maxaad helaysaa? lambar kow, ilaahay dembigaaga inuu dhaafo. lambar labo, inuu ilaahay dacwadaada ajiibo. dad baa waxay ku dhahayaan mar kasta ilaahay waan baryaayo waxba lagama aqbalo. war ducooyinka dacwaadka lagu ajiibo barta, ducadana ka mid ahe oo mar kastoo indhaha aad kala qaado ducadan akhriso weeye. midda saddexaad ka faa'iidaysa waxa waaye marka aad salaad aad weysaysato oo aad istaagtood salaaddii tukato, salaadaasi ilaahay waa kaa aqbalayaa waay, ilaahay waa kaa ajiibayaa waay. marka insha allahu tacaala ducadaasi waa duca aad muhiim waa duca aad u wanaagsan, waa duca fadligeeda iyo wanaaggeeda aan intan lagu soo koobi karin, laakiin waxaanun ka sheegnay wax yar oo ka mid ah. marka insha allahu ducadaa ku dadaal insha allahu tacaala. markastoo indhaha kala qaado ducadaa afkaaga bar. mar kale haddaan ku celiyo ducadii oo akhrisa waatana.